بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan daawadayaasha channelka insha allah bismillahi kariim waxaan dhigi doonaa caawa halkan Microsoft Office Excel casharkiisa koowaad ayaynu dhigi doonaa waa macalin maxamed ibraahim cali suldaan oo idin leh kusoo dhawaada channelka kana faa'iidaystaa insha allah bismillahi kariim caawa roo badaaya haddii aa codka si wanaagsan u maqli weydaan aad baan raalli u ahaanaysaan marka koowaad waxaynu ku bilaabaynaa Microsoft Office qaybihiisa wuxuu qaybsamaa Microsoft Office Word kow oo loo isticmaalo inta badan in lagu qorto waraaqaha CV-yada waraaqaha codsiyada ayaa lagu qortaa waxaa inoogu xiga labo Microsoft Office Excel baa inoogu xiga oo isna aad iyo aad ugu muhiima wax allaale iyo wixii xisaabaadka ku tacalluqo oo dhan buu muhiim u yahay markaa kaasi aad iyo aad baa uga taxadiraysaan si wacanna waa u eegi doontaan insha allah caawa introduction un baan bixinayaa laakiin si wanaagsan baynu insha allah bismillahi kariim isula jaan qaadi doonaa Microsoft Office PowerPoint baa ku xiga oo inta badan loo isticmaalo waxyaalaha jaamacadaha oo kale in projectorska loo adeegsado ama institutionska waxbarashada ayaa loo adeegsadaa inta badan Microsoft Office Access oo isna loo adeegsado database-ka ayaynu insha allah isna eegi doonaa waxaa inoogu xiga publisherka oo inta badan shahaadooyinka isna loo adeegsado kusoo dhawaada channelka hormood online college kusoo dhawaada mar labaadka waxaan bilaabi doonaa kow Microsoft Office Excel baynu bilaabaynaa way Word ku iska fududiyey waynu soo noqon doonaa laakiin Excelka ayaan doonayaa qaybta xisaabaad badan buu leeyahay markaa inaan xisaabaadkaas si wacan aynu u dhigno oo ka faa'iidaysataan ardayda thesis-ka jaamacadaha inta badan si wanaagsan bay uga faa'iidaysan karaan waayo waxa uu leeyahay chartiskii ama graphiskii ama wixii oo dhan waa lagu muujin karayaa hordhaca aynu caawa bixino introduction iyo qawaacidda ku tacalluqa waa macalin maxamed ibraahim cali suldaan oo takhasuskiisu yahay physics iyo xisaab khaasatan physics-ka xisaabta ayaa takhasuskayga gaar aan uga sii dhigay IT-ga laftiisa isagana waan bartay waan idinka faa'iidayn doonaa haddii ilaahay idmo insha allah biidnillahi kariim aynu bilowno haddaba darsigeena hadda ayaa waxaynu bilaabaynaa darsigeennii Microsoft Office Excel ayaynu bilaabaynaa markaynu bilaabayno waa ka halkan iska yaalla waynu ku dhufan karaa waxaa kaloo aynu samayn karnaa halkaa intaad start menu-ga ku dhufato ayaa halkaa waxaad ku qoraysaa Office waa ka halkaa soo baxaya markuu soo baxo weliba Microsoft Office Excel baad ku qoraysaa deetana wuu kuu soo baxaya insha allah waxaynu sharixi doonaa inagu 2007 kuna inta badan dadku waxay isticmaalaan 2007 2010 2016 2019 waana isku wada dhow yihiin dhammaantood wax badan oo faraqi uma dhexeeyo marka marka koowaad Excelka markaynu baranayno waxaa muhiima inaad qodobo yaryar oo aad iyo aad ugu tacalluqa aad u ilaaliso halkaa markaynu taagannahay saddexdaas waxay kuu sheegayaan normal oo qaabkan imika yahay u samaysan yahay sheetkeenani ka labaadna wuxuu kuu sheegayaa page-kii buu kuu sheegayaa oo page-ku ayuu kuu sheegayaa inta page ku fadhiisan like intaas imika cad waa page-kii intaas waa page marka kaasi wuxuu kuu kala googeynayaa page-ka kaasina wuxuu ka dhigayaa daaqadda madow buu ka dhigayaa marka waxaynu samayn doonaa insha allah inaynu ku dadaallo kan halkaa dhexaa lagu dhuftaa deetana wuu isu soo dhawaanayaa page waa kan intana imika active page waa kan intaas sare waan goynayaa waa magaca hadba waxa aad doonayso ayaad u samaysan kartaa marka waxaad odhan kartaa ma dailyba ma waxaad doonayso dee xisaab xidh baad samaynaysaa ma magaca waxa aad doonayso ayaad u samaysan doontaa insha allah bismillahi kariim aflax store baana u sameynaya aflax store waa storekeeni oo loo yaqaano aflax magaciisa la yidhaaho markaad weyneynayso fartaa eedaa weyn baad ku
dhufanaysaa markaad ku dhufato wuu sii weynaanaya waayo markuu weynaado waad yarayn kartaa waad ka yarayn kartaa kalarka waad bedelan kartaa halkaasaad ku dhuftaa dadana kalarkaad doonaysaad ka dhigi kartaa waayo halkaa markay marayno halkaa waxaa lagu qoraa inta badan numberka amaba dateka ayaad ku qoraysaa date bay nagu qoran waa dateka alaabta lagaa qaatay yaa qaatay markaas ayaynu qoraynaa customer customer ayaynu insha allah qori doonaa customerkaasi qaatay customer baa qaatay muxuu qaatay productga uu qaatay waa noocma productga uu qaatay maxaa uu yahay waayo quantity intee leeg buu ka qaatay quantity-ga uu qaatay muxuu yahay pricekiisu muxuu yahay isna quantity-gan xabadiiba maxaa la siinaya total hadhow tole faa'iidooyinka iyo waxaasaynu eegi doonaa isagana oo casharkeena ugu xiga insha allahu ya datekii waxaynu qoraynaa 26 bishii afraad ee 2020 waxaa customer nameka waxaa la odhan jiray waa la yaro weynaya inta badan customer nameka waxaa la odhan jiray cali jaamac wuxuu qaatay productga nooca uu qaatay waa basto store baynu haysanaa basto ayuu qaatay marka ingiriisi ahaan haddaad u qorto iyo haddaad soomaali u qorto waa isku mid halkaas sare waxaa la sameeyaa inta badan fartaa border baa laga yara kalarkeedana waa laga yara duwan marka doonta waxaad ka dhigi kartaa kalar kaloo ka yara duwan kaas buluuggaasa waad ka dhigan kartaa waayahay waxaana la sameeyaa oo kale intaa waa la halayd gareeyaa intaad doonayso deetana all borderskaasaa lagu dhuftaa all borderska markaad ku dhufato wuxuu kaaga dhigayaa layman buu kuu marinaya dateka markaa waxaa cali jaamac wuxuu iga qaatay oo alaab iga qaatay basto 12 xaba ah 12 kartoon markaa oo midiiba aan $8 siinayo haddaynu qaacidada dhisayna inta ugu muhiimsan waa qaacidada iyo qaabka loo qorayo qaacidadii markaa waxaan samayn doonaa insha allah bismillahi kariim halkan eeg shaashada waxaad samaynaysaa equal ayaad ku dhufanaysaa taa keyboardkaaga markaad taagantay equalkaasaad ku dhufanaysaa equal markaad tidhaaho kaasaad ku dhufanaysaa waa quantity intii xabe lagaa qaatay lagu dhuftay 8 waata dusheeda ku jirta markaa shift baan qabanaya shift markaan qabto waxaan taabanayaa oo shiftiga anigoo haya ayaan taabanaya 8kii waxay soo baxaya asterisk waa lagu dhuftay calaamadaya lagu dhuftay kan deetana markaasaa waxaan ku dhufanayaa inter baan ku dhufanaya 12 lagu dhuftay 8 waa 96 kadib intaas markay soo baxdo waan soo jiidaya markaa intaan saa ku dhufto marka hore intaan ku dhufto ayaan soo jiidaya wixii dambe oo dhan isaga ayaa isugu kaa dhufanaya oo kuu dhammaystiraya waxaan odhanayaa isla 26kii bisha afraad ee 2020 nin la yidhaaho Hussein ayaa waxa uu iga qaatay alaab isna isugu jira bagaash laakiin bagaashka muxuu yahay bagaashkaasi waa buskud buu iga qaatay buskudkaasi wuxuu ahaa 50 kartoon oo lagu dhuftay midhiiba $2 waa $100 ka soo baxay isla 27kii bisha markaa waxaad u isticmaali kartaa daily waxaad u isticmaali kartaa bille saad doontaad u isticmaali kartaa hadhow tolo waad soo saari karaysaa xabad baad soo saari karaysaa 26kii bisha 27kii bisha afraad 2020 nin la yidhaha cali jaamac ayaa soo noqday wuxuu iga qaatay
saliid iga qaatay. wuxuu markaa iga qaatay 100 caagadood oo lagu dhuftay midkiiba anu $7 baan ka siiyey $7. isla ninka la yidhaaha Xuseen ayaa wuxuu soo noqday 27kii bisha oo afraad 2020 bishii afraad ee 2020 ayuu soo noqday Xuseen ninka la yidhaaha wuxuuna iga qaatay isna saliidii markuu qaatay 150 buu qaatay kartoon waxaanu noqday markaas aan ka siiyey isna $7 $150 ayuu isna siiyey kaashkaas. adigu isla 27kii bisha intaynaan dhaafin ee 2020 waxaa la iga qaatay isna nin la yidhaaho cali kada laakiin jaamacna la yidhaaho oo customer cusuba ayaa iga qaatay wuxuu iga qaatay isagu sonkor markaa wuxuu iga qaatay 750 kiish waxaana ka siiyey midiiba $15. waxba yaynaa sii wadini intaasi markii layga qaatay alaabta totalkayganaan doonaya waxaan samayn karaa totalkayga ayaan rabaa inaan helo halkaasaan ku qorayaa halkaa ugu hooseysa intaa waan jaraya deetana merge baa la yidhaahaa oo kaa imika uu isu soo jaray laynkii dhexu ka saaray markaa waxaan odhanayaa net balance amaba balancegii ii hadhay totalka lacagtii oo dhan oo la isu soo geeyey badhe totalka markaan isu soo geynay waxaan odhan karaa intaan idhaaha equal markaa intaan equal idhaaho keyboardkiidii soo saaro equal baan ku dhufanaya equal markaan qoro sum baan qoraya sum markii aan qoray qaws baan furaya kadibna halkaasaan kasoo qabanaya oon soo jiidaya anoo haya karsarka ayaan soo jiidaya marka koowaad saama tigi waad soo jiidaysa adoo haya soo jiidaysa ilaa ka hoose markaad keento qaws baad ku xidhaysaa inta badanaysa 13,196 waa marka intaa laysu soo geeyo maca wixii kale lagu daro waaye halkaas waxaa markaa ii soo baxay in ay dee lacagtii maanta aan iibiyey maalmahan labada maalmood ee 26 iyo 27 ay iga qaateen ay intaa tahay deetana warqadii waad usoo saari karaysaa haddaad doonto waxaad usoo saari kartaa qof kasta tiisaad usoo saari karaysaa waaye taasi waa taas taa markaad samaynayso qaabkaasaa la sameeyaa oo aad u dejinaysaa shaxdaa marka hore saasaad u dhisaysaa kadibna tirooyinkaad ku qoraysaa bal mar labaad aynu eegno midka yara duwan waxaaban doonayaaba kaasi waa xisaabaadkii laakiin mid kalean doonaya inaan dejisto waxaan doonayaa inaan dejisto incomekayga ama xisaab xidhka qaabka aan u xidhanayo ayaan doonayaa inaan eego caawa habeen kaste maxaa xisaab xidhkayga noqonaya halkaa inta saad tidhaaho ayaa waxaad merge baad ku dhufanaysaa xisaab xidhka markaa weynay waa caawa hordhacumaan kasii bixinaya laakiin bal waynu eegi doonaa insha allah biidni illahi kariim halkaa waxaan ku qorayaa number horta qor number halkaa waxaan ku qorayaa description ayaan ku qorayaa descriptionkaasi waa qeexitaanka nooca markaa aynu u baahan nahay waxalaalayo wuxuu doona ha noqdo descriptionki weeyaan halkaa waxaan ku qorayaa in waa wixii soo galay halkaana out waa wax allaala iyo wixii iga baxay halkaana balance ayaan ku qoraya haddaba halkan in yar aad ugu fiirsadaa halkaa number 1 baan idhi
two three intaa markii aan qoray ayaan soo yara jiiday deetana hoos baan soo jiiday markaan usoo jiiday waxaa dhacay descriptionka waa wixii qofkii waxaan qaatay qofkii iga soo galay ama qofkii qaatay ama qofkii aan maanta siiyey waa xisaab xidh yar oo fudud aad u samaysan karayso intaa yaraan idiin sheego waad halayd garaynaysaa marka koowaad markaad halayd garayso kaasaad furaysaa ishaa all borders baad ku dhufanaysaa waayahay in la yidhaaho horta hadhaagi xalay toole khasnada waxaa ii yaalay $1 $1 ayaa khasnada ii yaalay marka qaabka loo dhisayo ayaa muhima uun waxa kale oo dhan way iska fududahay laakiin qaabka loo dhisayo ayaa aad iyo aad u muhiima hadhaagii xalay toole lacagtii ii taallay intaas ay ahayd waayahay hadhaagaas inuu halkaan tagaan u baahanay balansiga equal baan ku dhufanayaa deetana eeg fiirso equal baan intaan halkaa ku dhufto marka hore ayaan equal taabanayaa deetana kaastaan ku dhufanaya in lacagtii inter baad markaa ku dhufanaysaa eeg intertaa ayaad ku dhufanaysaa lacagtii oo bartaan kuu timi haye waa tallaabadii koowaad aad qaada tallaabadii labaad maanta nin maxamed la yidhaaho ayaa waxa uu ii keenay $1,400 ayuu ii keenay waa in isaguna dee uu ii keeno lacagtan way soo gashay waaye markaa halkaasaan ku dhufanaya halkaa ayaan ku dhufanaya intaa yar u fiirsada aad ugu fiirsada waa inta ugu muhiimsan equal baan ku dhufanaya equal ama halkan haddaan doona aynu kasoo kicino equal shaasaan ku dhufanaya kaasaan ku dhufanaya markaa waa hadhaagii oo loo geeyey baan doonayaa shifti qabo deetna balas halkaa equalshii lafteeda ku dhufo loo geeyey $1,400 eeg hadhaagii xalay oo loo geeyey wixii isoo gala haye laga jaray wata waxba ha qabanin shiftina ha qaban laakiin ku dhufo laga jaray wixii iga baxay godkaa wixii lagu qoro laynkaaba wixii lagu qoro wuu ka jaraya markaa deetana inter baan ku dhufanaya waaya kun baa xalay yaal $1,400 baa isoo galay $2,400 baan hayaa $2,400 kaa labaad ayaad ku dhufanaysaa deetana waad jiidaysaa $2,400 baa istaxaysaa halkaa wax allaala iyo wixii dambe updated buu noqonayaa xisaab xidhkaaguyo wixii kusoo galay wixii kaa baxay eeg waxa isoo galay oo kale saad tusaale telesomtii oo kale ayaa saadkii waxaa iga soo galay saad waxaa iga soo galay $300 ayaa saadka laygu shubay 3 ku badhay waayahay ii dahab iyadana waxaa igaga jira $1,000 ayaa igaga jira waxaasoo dhan oo laysu geeyey eeg markii ugu horreysay kunkii wakaa waa updated $1,400 baa isoo galo kii buu geeyey $2,400 3,000 baa isoo galo labadii kun buu geeyey oo maxaa isoo $5,400 kunkii buu geeyey $6,400 weli way socotaa waxaa iga baxay intaas waa lacagii soo galay waxaa iga baxay oo expenses u baxay nin baaban salarigiisii siiyey maanta mushaharkiisii ayaan siiyey wuxuu noqday $450 baan siiyey uu ka gooyey isla markaa waxaan haystay $6,400 ka jaray $5,950 waaye waxay nagu sii xigayaa oo halkaa aan ku qoray haddana kharashaad maanta kharashaadka waa inaad caddaysaa waa inaad warqadii haysataa waa inaad waxaasoo dhan markaad xisaabiye tahay aad haysataa kharashaadka waa shaah maanta shaah waxaa u baxay $5 tusaale shidaal waxaa u baxay isna oo maanta aan bixiyey shidaal ah tiradii markaa waad meel kalead ku caddaysanaysaa warqadaad haysataa $50 oo shidaal waayahay waxaa iga baxay maanta oo aan ku shubay account
600 Dar es Salaam markaa 600777219 account-ka amaba waxaan ku shubaysna oo lacagtaan iskaga shubay $5,800 hadhaagayga muxuu noqday $95 kadib maxaan samaynayaa waa in $95 laga helaa khasnadayda lacagtii soo gashay waatan in lacagtii iga baxdayna waatan waa in laga helaa dad doonto waxaad samayn kartaa halkanaad soo jiidaysaa halkaasaad keenaysaa maxaan samaynaya automatic sum waad odhan kartaa taas markaad soo geenaysa laynkaa intaad soo halayd garayso ayaa waxaad ku dhufanaysaa automatic sum $6,400 baa soo galay halkaa waad masaxaysaa oo taas waxay la haysataa xisaabta waayo lacagta iga baxday imisay noqonaysaa automatic sum baad ku dhufanaysaa 6,305 baa iga baxay hadhaagii baan doonayaa hadhaagaa markaan doonayo waxaan samayn karaa hal mid baan samaynaya equal baan odhanaya 6,400 laga jaray 6,305 deetana enter baan odhanaya maxaa ii soo baxay waxaa ii soo baxay hadhaagii hore aan hayay oo kale ayaa ii soo baxay isagoo update ah markii aan sidan isugu soo geeyey labadan soo geeyey kala gooyana waa kan marka sheetkan yar oo kale inta badan waxaa loo adeegsadaa xisaab xidhada yaryar ee fudud ee dailiga ah inta badan ayaa loo adeegsadaa aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin waa Maxamed Ibraahim Cali Suldaan oo idin leh daawasho wanaagsan si fiicanna uga faa'iidaysta wixii tala iyo tusaale ana waa ii soo jawaabi doontaan insha Allah Ilaahi kariim markaad save garaysanayso waatan save baad ku dhufanaysaa marka save markaad ku dhufatay xaguu ku save gareeyey inta badan meel uu ku save gareeyey adaa dhiganaya xagaan dhigaa waxaan dhigayaa desktop waxaan bixinayaa xisaab xidhka habeenimkii baan bixinayaa xisaab xidh daily markaas ayaan bixinaya folderka desktopka yaalee new iskaga taalo mid kalaan samaysanayaa oo aan ku qoray xisaab xidhka barta dhexdeedaan samaysanayaa right click baad isku dhufanaysaa sidana new baad tegaysaa kadib new folder baad odhanaysaa xisaab xidh deetana isaga laftiisa ayaad 2 jeer ku dhufanaysaa save baad odhanaysaa ku save gareeyey dhammaanteed aad iyo aad baad u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi